Dhulgariir halbeegiisu ahaa 4.7 ayaa caawa goorsheegtadu markay ahayd 8:15 fiidnimo waxa uu ka dhacay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Dhulgariirkan oo aan badi laga dareemaynin xaafadaha ay ka kooban tahay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa waxaa haddana jira digniino la dirayo si dadku u feejignaadaan. Weli lama shaacin khasaare uu weli geystay dhulgariirkani, balse waxaa jira goobo si daran looga dareemayo dhulgariirkan oo ay ka mid tahay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Westland. Dhulgariirkan cabirkiisu yahay 4.7 ayaan u xoog badnayn sidii kuwii lagu hoobtay ee ka dhici jiray wadamada qaar. Bulshada ku dhaqan caasimadda Nairobi ayaa ah kuwo u dhagan nugul fariimaha digniinaha ah ee la bixinayo, waxaana la arkayaa xaafadaha Soomaalidu ay ku badan tahay kuwa oo dabaqyada ka soo degaya si ay badqabkooda ula tacaalaan, maadaama aanan la isku aamini karaynin garoofooyinka dhaadheer ee ay degan yihiin Soomaalidu. Lama saadaalin karo xaaladani dhulgariirka ah ee caawa laga dareemayo gudaha caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Sharmaarke Mahdi Cabdi, Wama TV.